halkii 2 saacadood iyo barka socon jiray laan kursado 40 daqiiqo ka socdaan imika iyagoo tan adag baraya buurahaas dadku waxay idhaahdaan hadda jeer ma China dalooliye China ma daloolina wakaaladda horumarinta wadooyinka ayay dadaal badan ay samaysay inta ku soo qabatay waxaan jeclaan lahaa ma ku baaqi lahaa in la isugu tago wadadaas oo meel fiican bay maraysaa si laami looga dhigi lahaa in laga wada qayb galo oo dhammaan maxaan ku dhahdaa shacabka Soomaaliland ganacsatada iyo cidii wax haysata iyo qurba joogaba wafdi ballaadhan oo hogaaminaya maareeyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland Engineer Mawlid Nuux Ibraahin ay ka mid ahaayeen agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland maayirka degmada Baki isuduwaha wakaaladda horumarinta wadooyinka gobolka Awdal iyo qaar ka mid ah odayaasha deegaanka degmada Baki ayaa si wadajir ah u soo kormeeray dhismaha wadada isku xidha Boorama iyo Baki kormeerkaas oo dulucdiisu ahayd kuurgalka hanaanka ay u socoto shaqada baaxadda leh ee dhismaha jidkaasi wafdigan ayaa waxa ugu horreyn warbixin guud ka siiyay jidkan iyo hawlaha ka socda injineer Khadar Gaaxnuug oo ka mid ah injineerada gacanta ku haya dhismaha wadadan iyo sidoo kale injineer Xasan Caateeye oo ka socday hay'adda Save the Children wadadan qaybtan aan wadna hay'adda wadooyinka RDA ee wadadan ka warbixiyo waa 14 kiiloomitir iyo 500 ayaanu gacanta ku haynaa dhammaan 14 kiiloomitir iyo 500 intii ugu badnay waanu dhamaystirnay 3 kiiloomitir ayaa carakaawadi noo harsan tahay katinkii buurihii ugu adkaa katinkoodiina waanu dhamaystirnay ilaa 100 mitir oo katina ayaa buur walba hoos u goynay waad arki doontaan oo fiidiyowada ku arki doontaan aad baanu buuraha uga shaqeynay dhammaan saddexdaa imika inta noo hadhay waa 3 kiiloomitir buurta inaanu carakaawadi dhigno meelaha qaarna aanu leerkii labaad ee carakaawada aanu ku celino mashruuc beer fiican u maraya in kasto caqabada badan jireen oo dhul adag u yahay culayska ugu weyn ee ilaahay qarasiya ay hay'adda wadooyinka ay naga xamishay oo dhulkii ugu adkaa ay qabatay waxaan ku tala jirnaa labadan bilood soo socdo insha Allah taala qaybtii ku waajahneyd inay dhameystiraan quality-ga ay tayadii la doonay ugu sareysay gaarsiiyaan dariiqana sida ay community-ga iyo dadweynaha degmooyinka Boorama Baki iyo Ruqba ay dareynayaan maadaama degmooyin wax soo saaray yihiin waxay ka fikirayaan mashruuc si weynayaan maayirka degmada Baki Maxamed Axmed Caateeye iyo Sheekh Cumar Cabdilaahi oo ka socda odayaasha deegaanka oo hadalka qaatay ayaa u mahadnaqay maareeyaha wakaaladda horumarinta wadooyinka iyo guud ahaanba howlwadeennada wakaaladaasi waxaana ay sidoo kale faahfaahin ka bixiyeen muhiimadda jidkan iyo sida lagama maarmaanka ay u tahay in gacmaha la isku qabsado sidii loo dhameystiri lahaa halkii 2 saacadood iyo barka socon jiray laan kursado 40 daqiiqo ka socdaan imika iyagoo tan adag baraya iyadoo wadadu adag tahay waxaan codsanaynaa markaas horta waxaan mahad celinaynaa ciddii wadadan ka qayb qaatay ciddii fikirkeeda lahayd iyo dawladda dhexe oo madaxweynuhu uu ka yahay hay'adda horumarinta wadooyinka iyo madaxdeedii shaqaaleed aad baan ugu mahad celinayaa iyo ciddi kasta ee lacagtan soo bixisay wadada lagu aasaasay $540,000 waanu mahad celinaynaa iyo howlwadeennada wada waanu mahad celinaynaa waxaan aad iyo aad u mahadinaynaa oo mahadan u celinaynaa dawladda dhexe iyo agaasimayaasha kale ee ilaa bilowgii ilaa dhamaadkii noo imanayay maareeyaha iyo tiimkiisa dhan oo wadadan camuud marka laga soo bilaabay ilaa hadda saaka kormeeran ku soo marnay soo sameeyay baaq waxaan u diri lahaa Soomaaliland meel kasta joogaan ka soo qayb gal muwaadin dhismaha wadadan sidoo kale isuduwaha wakaaladda horumarinta wadooyinka gobolka Awdal Engineer Cabdilaahi Sugo madashaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay wadadan iyo ahmiyadda ay xambaarsan tahay waxaan gebiyahaan waxaan imaka soo marnay 22 kiiloomitir oo 14 kiiloomitir ay hay'adda wadooyinka ay fulisay iyo 2 Irish bridge oo ay fulisay maxay heedaanay Save the Children iyo contractor-ka 2 gole run ahaantii waxaana wadadani annagu inteedaan sameynay 4 kiiloomitir mishiinka riixay maareeyaha hay'adda wadooyinka lahaa aad looga mahad celinaynaa waxaan kaloo halkan uga baaqayaa sidii kelmadii uu sheekhu sheegay ahayd in maxay ahaanay ummadda Soomaaliland ay wadada contribution ka qayb qaadato hadama wixii intii u badnaay banayntii la sameeyay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Aadan Sheekh Cabdilaahi oo hadalka qaatay ayaa waxa uu tilmaamay saaka intaan soo marnay waxaan arkayaa wax weyn baa la qabtay runtii oo hawshaasi ka qabsoomay ilaahay xamdigii wax badanna way dhiman yihiin runtii wadadu waa sida laga waramay waxa weeye qaybaheega la sheegay
dee waxay ka kooban tahay qaybo badan oo adag in badan oo intii ugu darinay waa laga soo gudbay halkan 10 cisho ka hor waxaan imi iyadoo ay ku jirto cagaftii excavator ku jirto buurta jafaysa oo meel kale laga wareegayo alxamdulillah maanta waa ka baawurtii ay marayso waxay ka mid tahay waxyaalaha badan ee la qabtay wadadani waxa weeye runtii waa wado sadaqa jaariya qofkii wax gashada hadduu gobolka yahay iyo hadduu gobolada kale yahayba waxaan jeclaan lahaa oo ma ku baaqi lahaa in la isugu tago wadadaas oo meel fiican bay maraysaa si laami looga dhigi lahaa in laga wada qayb galo. ugu dambeyn waxaa madashaasi hadalka qaatay maareeyaha guud ee wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland Engineer Mawlid Nuux Ibraahin oo faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay dhismaha jidka Boorame iyo Baki iyo dadaalada kala duwan ee wakaaladdu ka hirgelinayso mashaariicda waaweyn ee dhismaha wadooyinka dalka iyo muhiimadda gaar ahaaneed ee jidkani leeyahay. wakaaladda horumarinta wadooyinka waxay mashruucan ka qaadatay 14 kiiloomitir iyo badh oo inta ugu adag buuraleyda. mashruucan wuxuu u qaybsamayay 3 qaybood waa banaynta buuraha iyo carakaawada iyo daamurka dambeyn doona hadii aan leeyahay imiga waxa ilaahay mahadiyo meel wanaagsan maraya banayntii buuraha iyo carakaawadii qaybii koobaad oo meel wanaagsan maraya mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan ku amaanaya shaqaalaha wakaaladda horumarinta wadooyinka iyo shirkadda qaybteedaba ee had iyo habeenba u taagan inay wixii ummadan u qaban lahayn ka mid dhaliyaan waxaad ogsoontiin oo deegaanku ka marakaceen buurahaas weligeed laguma haymiin iyo fiidiyoda intaad ka arki doontaan la soo dhaafay in muxuu ahaa dadku waxay idhaahdaan had iyo jeer Soomaalidu waxay tusaale soo qaadataa ma China dalooliyay China ma daloolina wakaaladda horumarinta wadooyinka shaqaalaheega iyadoo wixii yar yahay muxuu ahaa agab ka haysta ayay dadaal badan ay sameysay inta ku soo qabatay wakaaladdu iyada u xil saaran qaranka inay wadooyinka u dhisto laakiin hadba haynteedo kooban wixii karaanka iyaga inta ugu badan baan u qabanay taa dambana waxaan diyaar u nahay inaan ugu badan ka qayb qaadano hadii aan leeyahay wakaaladahan ugu horeysana jeeg deegaanadana waxaan rajaynaynaa hadii aan leeyahay in iyaguna qaybtooda ka qaataan hadii aan leeyahay dhismaha jidkani ay sakaashanayaan hay'adda horumarinta wadooyinka Soomaaliland iyo hay'adda Save the Children ayaa ah mid ay baahi weyn u qabeen bulshada ku dhaqan gobolada galbeedka Soomaaliland waxaana uu maareeyuhu mid isu dul taagay dooxooyinka jidkani marayo ee shaqadu ka socoto buuraha la jeexay ballaarinta iyo habeynta jidka isagoona warbixino ka dhageysanaya injineerada hawlaha jidkaasi u qaabilsan. Wacabsalaan Bashiir Faarax Absalaan Saha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Boorama.